Aabe ayaa wuxuu dhalay 4 gabdhood isaga iyo xaaskiisa waxay ka shaqeynayeen in ay u tarbiyayaan gabdhahooda sida ugu fiican. Xaaskii ayaa dhimatay xilli gabdhaha midda ugu yar ay ahayd 7 jir halka gabadha ugu weyn ahaana ay jirtay 14 sano. Aabihii waxa uu diiday in uu guursado kadib geeridii xaaskiisa waxauna ahaa mid waqti la qaata gabdhihiisa si fiican uga taxadara. Gabdhaha midda ugu weyn ayaa si fiican u saaciday iyadoo u gashay walaalaheed booskii hooyadoodii geeriyootay. Muddo 10 sano ah kadib 3 dhalinyaro ah ayaa soo doontay gabdhihii. Aabihii waxa uu go'aansaday inuu u guuriyo gabdhaha midda ugu weyn kadibna midda ku xigta laakiin gabadhii ugu weyneed waxa ay diiday inay guursato maxaa yeelay waxa ay doonaysay inay xanaanayso aabaheed oo ay u khidmayso gaar ahaan marka ay daada ka daba timaado. Xanuuno ayuuna saaxiib la noqday aabaha xilligaasi. Aabihii waxa uu u guuriyay 3 gabdhood ee kale. Gabadhii weyneed waxa ay ahayd mid ku nagaatay aaba agtiisa xanaanaysa u khidmaysa ilaa uu dhintay aabe. Markii uu dhintay aabihii gabdhihii waxa ay fureen warqadii dardaaranka ahayd ee uu kaga tagay aabahood waxaana ku qornaa ha qaybsanina ama ha iibinina guriga ilaa ay ka guursanayso walaashin idinka weyn taas oo farxadeedii u hurtay farxadiina. laakiin 3 gabdhood waa ay ka soo horjeesteen dardaarankii aabahood waxayna ahaayeen kuwa doonayo in la iibiyo guriga qof kastana uu qaato qaybtiisa dhaxalka ayaga oo aan dan ka lahayn halka ay aadi doonto walaashood ka weyn taasi oo aan haysan hooy ama qof kale. markii laga reebo rabbigii weynaa 3 gabdhood ee xaasaska ahaa waxa ay suuq geeyeen gurigii. wiil dhalinyaro ah oo maalqabeen ah ayaa aqbalay inuu iibsado guriga. markii ay dareentay gabdhaha midii ugu weyneed in guriga la iibin rabo lana qaybsan doono lacagta waxa ay la xiriirtay qofka doonayo inuu iibsado guriga. waxa ay uga sheekaysay qisadii dardaarankii aabahood iyo in aysan haysan meel kale oo ay ku hoyato dhowr bilna uu sugo ilaa ay ka helayso meel kale oo ay ku noolaato. wiilkii guriga gadanayay waxa uu ka aqbalay codsigeedii waxa uuna ku yiri hagaag dhib ma leh lama wareegi doono guriga ilaa aad iiga sheegto in aad heshay meel wacan oo aad ku noolaato xitaa haddii ay kugu qaadato sanado badan. wiilkii guriga iibsanayay waxa uu bixiyay lacagtii guriga. gabdhihiina waxa ay qaybsadeen lacagtii. 3 gabdhood waxa ay aaday mid kasta guriga ninkeeda ayaga oo faraxsan. waa ay dhool cadeysay gabadhii weyneed ee rumaysaneed in alle uusan dayici doonin maadaama ay la saaxiibtay waalidkeed ayna u khidmaysay ilaa uu ka geeriyooday. waxa ayna u rajaysay 3 gabdhood ee la dhashay wanaag oo dhan. maalin maalmaha ka mid ah gabadhii weyneed waxa la soo xiriiray wiilkii guriga iibsaday. waa ay cabsatay waxa ayna maleysay in wiilka uu ka noqday ballantii uuna guriga ka saari doono. waxa uuna ku yiri wiilkii isaga oo dhool cadeynaya waxa aan go'aansaday in aan kaaga dhigo gurigan meher waase haddii aad aqbasho in aan ku guursado. kuma riyoon qof iiga ka fiican oo aan guursan lahaa. ogowna ilaahay ma dayacayo qofkii khayr sameeya kumana sii jirtid adiga oo baari u noqday waalidka. gabadhii weyneed waa ay ilmaysay waxa ayna ogaatay alle inuusan dayicin camalka dadka wanaagsan. waa ayna ka aqbashay guurka wiilkii dhalinyarada ahaa ee taajirkana ahaa. waxa ayna ku nooleed farxad weliba iyada oo joogta gurigii aabaheed laakiin markan waxa ku welinaya saygeedii wanaagsanaa.